asalaamu calaykum se halkan uga jeedaan bitcoin waxay kor u dhaaftay 100,000 oo dollar habeenkii arbacada ah ayay ahayd markii ugu horeysay bitcoin abid ay kor u dhaaftay 100,000 oo dollar numberkan 100,000 oo dollar waxa weeye halkii xabo waxay u dhigantaa 100,000 oo dollar in ka badan waa number la wada sugayay waa number psychologically haddii numberkaas dhaafto ay dad badan ay soo baraarugayaan media ku arkaysaan wararka dhan bay qabsanaysaa marka 100,000 oo dollar lacag yar ma aha waa lacag aad u badan waxay kaloo la mid tahay markay bitcoin $1 ay gaartay oo kaleeto intaanoo sano ka hor waayga lasoo aasaasay $10 oo kaleeto $100 oo kaleeto $1,000 oo kaleeto iyo 10,000 nambaradaas waxay yihiin nambaro macnaha line la dhaafayo haddii mar line ka dhaaftana ay dad badan ama wax badan iska bedelayaan ama macnaha la yahay number ama number la wada sugayay oo dad badan fiirsanaya numberkan number ku xigi doona 100,000 oo dollar ma 1 milyan oo dollar ba Allahu a'lam ilaah ba og laakiin su'aashu waxa weeye dad badan hadda isweydiinayaan ma tahay xilliga hadda la joogo xilligii bitcoin la gadan lahaa maadaama bitcoin 100,000 oo dollar hadda ka kormartay dadka dabacadeeda ayaa waxay tahay markay bitcoin dhacsan tahay 10,000 maraysay 20,000 maraysay iyo 30,000 oo aan ka soo hadli jiray cidna ma garan jirin laakiin hadda markay news ka saaran tahay oo meesha ugu sareysay maraysay ay dadka dhan ku soo yaacayaan laakiin ani waxaan aaminsanahay bitcoin meel ka fiican oo lacag la gashto maanta la joogo iima muuqato xataa haday 100,000 marayso iyo haday 200,000 marayso xataa iyo haday milyan marayso xataa meel kale oo lacagtaada ku haysan kartid bal aduguba noo sheeg bal aduguba hoos ku soo qor meesha ka fiican oo bitcoin maanta lacag la gashan lahaa ganacsi haday noqoto ganacsiga risk aad u badan yahay ganacsi fiican oo faa'iido badan dhali karaan adduunkan hadda waa yar yahayba dhulkii oo kaleeto dahabka oo kaleeto ayaguna riskigooda iyo faa'iidadooda wax bitcoin u dhow xataa ma ahan marka meel bitcoin ka fiican haddii hadda maanta marayso 100,000 iyo haddii milyan maraysaba waa ku soo celinaya iima muuqato laakiin hal shuruud ayaa ku xiran waa inaad sugtid muddo badan ma ahan waxaan wax degdeg lagu helo 100,000 oo dollar 16 sano kadib ayay soo gaartay 16 sano ka hor ayay bitcoin soo bilaabatay siira ayay kasoo bilaabatay maantana 100,000 oo dollar ayay maraysaa bal qiyaas coin ka soo bilowmay lacag la'aan ku soo bilowmay oo zero ku soo bilowmay maantana 100,000 maraya halkiisa xabo waa wax aad iyo aad loola yaabo 16 sano waa waqti yar haddaad dhinacaas ka fiirso dhinaca dhaqaalaha iyo financing iyo kamaniyaasha isay ku soo shaqeeyeen wax performance-gaas sameeyay ama kicitaanka sameeyay way yar yihiin laakiin adduunkan wax hal mar toos isaga socda ma jiraan sababtaas ayaa keentay inay mar kor u kacdo mar hoos u dhacdo marka haddaad fiiriso trendiga guud 4 sano 5 sano haddaa haysa lacagtaada mar walba faa'iido ku jirta lacag la'aan kuma jirtid marka lacagta haddaad tiraahdo dollar ayaa bangi ku haysanaya inflation ayaa cunaya waa lacag ribo ku dhisan lacagahan fiyaadka san ku soo baxaan waa ognahay dhul lama gashan karo markaad lacagta cuntada kala baxdid iyo kharashaad kale ku sugaya wixii kale ku soo haray anigu saan sameyn lahaa waxa weeye ayadaan gelin lahaa haday 100,000 150,000 200 300 waxay doontaa ha marto wixii ku soo haray isaga tuur isagana ilaa muddo badan la sug marka waxaan la wadaagay fiidiyogan kaliya yahay dabaaldega inay bitcoin 100,000 oo dollar ay kor u dhaaftay insha Allah saan rajeynayo milyan way gaari doontaa iyo ka badanba marka wali faa'iido badan ayaa ku jirta haas oranin wixii waa lagu kala tagay waxaan laakiin in kula talinayaa inaad marka hore barataan oo fahantaan waxyaalaha ay qabanayso haddii kale waxay noqonaysaa sida dad badan oo hadda lagu dhacayo kaleeto coin kale oo aan waxba ka jirin oo tooga ah aan wax macnaal ku fadhiyin in dadka lacag looga qaato ama dad media ka soo maqashay ama social media ka soo maqashaan dad buunbuuninaya oo dana gooniya ku wata inay qiimaha kor u geeyaan ku soo daayaan rabaan bis ay tahay laakiin meeshaan suuqan cryptocurrency la dhaho bitcoin clear way waxa kale dhan yaa been lagaaga sheegin waa lacag aan macna qof samaystay ama waa company tuuga ah ama waa company dad raba in lacag kaaga sameeyaan adiga shakhsiyan lacagtaada ku qaataan bay rabaan laakiin lacagta runta oo meesha la isku haleyn karo waa bitcoin clear bitcoin way mid wax bedeshay ama wax la taaban karo ama isticmaal la taaban karo ama use case leh waxa kale dhan oo intaan kun oo coin oo meesha ku jira waa wax tuuga u badan qaarkood xalaal ahayn qaarkoodna kamaniyaal iyo shakhsiyaad leeyihiin oo si doonaan ka yeelaan marka intaas ayaa ku soo gabagabeynaya aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh